inkastoo aan u soo joogin haddana danta iyo duruufta nagu kaliftay inaan ururino taariikhdan dib u raacno annagoo isku koobayn kutubta taariikhda iyo qismaha sooyaalka ay qoreen dadkii Soomaaliyeed ee u joogay oo xog ogaalka u ahaa sida dadka qaybtii ay u joogeen ama raaciyada maanta nool ay badidoodba goostambeedka ku hayaan burburkii dawladda Soomaaliyeed waxa uu keenay in ummadda Soomaaliyeed dunida daafaheeda farxad ku noqoto waxa beerantay colaad qabyaaladeed waxa garab socday biliqo duminta daarihii xilligii dawladii shacabku ku dhiseen mashruucii iska wax u qabso waxa lumay majarihii maamulka dawlad iyada warkeeda bada 18 gobol oo wadanka ka koobnaa saddex baa la isku raacshay dhalaankii iyo dhalintiina waxa lagu guugaabiyay reer hebel baadakona naga dhaxaysa reer hebelka shishana waa cadowga si kastaba ha ahaatee daar duntay iyo marad duugooday dib baa loo soo celin karaa waxa saameynta ugu weyn noqotay 5 halo aan dib u kabashadeeda sahlanayn waa tan koowaado waa dhaqankii waa tan labaado waa afkeenii waa tan saddexaado waa suugaanteenii waa tan afaraado waa himiladii iyo fikirkii dhalinteena waa tan ugu dambayso oo ah dulli gumeedka qabyaalada barnaamijkeena maanta ee toddobaadka soo aadan waxaan si guud iyo gun hoosaba u falanqeyn doonaa labada afo oo ugu horeeya shantan kor ku soo xusna mooyee haddaan afada koowaad ku hormaro waa dhaqankeenii oday ma sheegin wiilna aabihii kama warin bulsho sabaan ka sabaan dhaqaneed in dhaqankoodu uu si tartiib ah u diirgo'o ku dhawaad 26 sano ayay ummadii Soomaaliyeed ahayd farxad dareen ku joog ah ku dhawaad 26 sano ayay ummadda Soomaaliyeed u hoosanaysay gacanta kuwii aabahood gumeeyay oo ku gabood falay si sahal ahna u qaayibay dhaqamadoodii waana tuhaadaan ka sii hoobanayse waxu sheegeeda yun afku igu daalin waa sahada leelama daaye waxaan idinku tusaaleyn hayaa hadduu ilaahay idmo maanse uu tiriyay Cabduqaadir Xirsi Yamyam Allah u naxariistee oo uu kaga hadlaayo dhaqanka dhextaalkeedana uu yahay barnaamijkeena dulucdiisa wuxuu yiri gabartii ma hadabatiyo gudniinkii la toli jiray waa dhaxal aan gurine wali geeska yaalo bulshadan u garee diiwaankana noo geli